السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز سود وهذا أدي هذا ومهتمين ما أنت وسبتي كودا بشهر لبعض فبراير سنة كلبضكم يا شهر لبعضنك. مقال كانوا حرب أن ندخل ويل الصومالية أو قبل كمينيسوتا كويرري ويل سكول كعياري باسكتبول حل لبا سكول أو هاي سكول أي باسكتبول عياريين لح ويل أو صومالية أو للسوحري مركي ويل كاسي أي داوع وجيستين أرنتها سوى ندلو وداقية ديارات كلا حالي كل عدد مجالات فيلادلفيا ee gobolka Pennsylvania oo qasaare xoogan geysatay imise qof ayaa ku dhintay imise ayaa ku dhaawacantay sidoo kale waan idin la wadaagaya arrimahaas iyo arrimo kale ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore soo dhawaada booliska New Hope ayaa waxay sheegeen in la soo xiray 6 dhalinyaro oo Soomaali ah kuwaas oo habeennimadii Talaadada ahayd weeraray iskuulka la yiraahdo Cooper High School iskuulkaasi waxa ku ciyaarayay basketball school kale oo la yiraahdo Fridley waxaana la sheegay in 6 wiil oo Soomaali ah ay yimaadeen si ay dhaawac amaba waxay damacsanaayeen lama oga laakiin ay dhaawaceen markii dambe wiil kamid ahaa wiilasha basketballka ciyaarayay walow markaasi uu kayd ka fadhiyay oo uu san ciyaareen kamerooyinka iskuulka ayaa waxay qabteen wiilashan oo gaari red sedan ah watay isla markaana banaanka 7 daqiiqo camal taagnaa markaa kadib gudaha galay loobigana xoogaa taagnaa isla markii ay soo galeenba si toos ah waxay u bartilmaameedsadeen wiil 17 jir ah oo kayd ka fadhiyay oo ka tirsanaa iskuulka Fridley labada iskuul ee Cooper iyo Fridley ayaa wada ciyaarayay markaas kadib waxa la sheegay tubo inay madaxa uga dhufteen mid kalena uu isku dayay in uu midig galiyo kuwa kalena ay ilaalinayeen macnaha in dad kale ay u soo gurmadaan ay ka ilaalinayeen 6 dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa weerarkan geysanaysa markaas kadib wiilkii oo aan la sheegin inuu cadaan ahaa inuu madow ahaa laakiin loo maleynayo inuu cadaan yahay waa la qariyay identity-giisa isla markiiba ambulance ayaa la carartay 6 qodob ayaa laga tolay xaaladiisana ma darna ayaa la leeyahay qoyskiisa ay leeyihiin laakiin gamekiina waa la joojiyay ardadii kale ee basketballka ciyaaraysayna meel ammaan ah ayaa la geeyay wiilashii Soomaalida markii dhaawacaasi ay geysteen kadib waa ay carareen gaarigooda booliska ayaa ceyrsaday meel ay gaariga ku dhufteen kadibna waa la soo qabtay marka wiilashan Soomaalida magacyadooda waxa lagu kala sheegay in ay qaarkood waa 18 ilaa 19 jir labo ayaa juvenile oo da'doodu ay yartahay labadaasi waa la qariyay sawiradooda laakiin afarta waaweyn sawiradan la soo bandhigay ayay muujinaysaa waxa kamid ah Yaxya Abdul Khayare sidoo kale waxa kamid ah Dursa Muqtar Muhammad Ayub Muhammad Ali iyo waliba Mubashir Ali afartaas dhalinyarada oo da'doodu 18 ilaa 19 u dhaxayso ayaa la soo xiray labada kalena da'doodu waa yartahay magacyadooda waa la qariyay iyo waliba sawiradooda maadaama da'doodu ay 18 ay ka yartahay boolisku waxay sheegeen weerarkan inuu ahaa mid bartilmaameed ah maadaama si toos ay wiilkan u beegsanayeen lama oga waxyaabaha dhaxeeya sidoo kalena waxa ay boolisku leeyihiin kama tirsanayn iskuuladan xitaa ma aysan dhiganin dhalinyaradan Soomaalida deegaankana xitaa ma aysan ka soo jeedin oo waxay ka imaadeen goobo kale wiilka la yiraahdo Yaxya Abdul Muqtar isaga waxa la leeyahay 20 January ayaa booliska Brooklyn Park isagoo stop light taagan ay isku dayeen in istaajiyaan waa uu ka cararay waxaana uu tuuray bistoolad markii dambena booliska xitaa lugta ayuu uga cararay waa la soo qabtay waa la xiray damaanad ayaa lagu soo day marka Ayub waa wiilka birta madaxa uga dhuftay wiilka 17 jirka oo dhaawac u geystay marka waxa la leeyahay 6 maalmood ka hor ayaa la xiray laakiin damaanad ayaa lagu soo daayay boolisku marka waxay leeyihiin ma ahayn in la soo daayo marka booliska iskuulada amaankooda waa la adkeeyay iyadoo sidoo kalena la arkayay banaanka boolis jooga labada iskuul ee Cooper iyo waliba Fridley marka lama garanayo dhalinyarada waxa ka dhaxeeyay laakiin 6 dhalinyarada ah ayaa weerarkaasi geystay oo Soomaalida ah waa ay carareen markii dambena waa la soo qabtay gamekaasi basketballka iskuulka Cooper High School ayaa lagu ciyaarayay waxaana la ciyaarayay Fridley High School iyadoo gamekiina la joojiyay markalena dib loo ciyaari doono marka arintaasi waa ay jirtaa sidoo kalena diyaarad kale oo diyaarad yar ayaa xalay waxay ku dhacday magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania diyaaradan waxa la leeyahay isla markii ay duushaba 30 second ama daqiiqada yar kadib waxa la leeyahay dhulka ayaa la arkayay sidii dhagax camal iyadoo ugu soo dhacday holac weyn ayaa ka dhashay waxay ku soo dhacday goob wada ah oo baabuur ay marayeen xaafado ayaa ku yiilay sidoo kalena meel mool ah ayaa ku yiilay sida aragtaan baabuur dhulka socotay ayaa gubatay guryo ayaa gubtay kuwa kale damage ayaa gaaray sidoo kalena dad fara badan ayaa
ayaa ku dhaawacmay. waxay boolisku leeyihiin diyaaradda waxaa saarnaa 6 qof. diyaarad caafimaad ayay ahayd oo diyaaradaha sida ambulaasyada loo isticmaalo dadka xanuunsan lagu soo qaado. gabar yar oo wadanka Mexico laga keenay oo Mareykanka lagu daweeyay iyo hooyadeed iyo 4 ka mid ah shaqaalaha ayaa saarnaa. waxayna u socotay magaalada Springfield Branson Airport oo ku yaala Missouri. kadibna waxay gabadha hooyadeed doonayeen Mexico inay sii aadaan. marka diyaaradan cilada sababtay ilaa hadda baaritaan ayaa lagu hayaa, laakiin boordu ayaa mas'uuliyiintu waxay ka bixiyeen faahfaahin sababta keentay dadka ku waxyeeloobay aan iraade diyaaradan. maayarka magaalada Philadelphia Sherelle Parker waxay sheegtay in 6dii qof ee diyaaradda saarnayd oo ilmihii yaraa ay ku jireen horta ay dhinteen. qof kale oo gaarigiisa ku jiray oo dhulka socdayna maadaama waddo ay ku soo dhacday waa uu geeriyooday. 19 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. waxaa sidoo kale jira guryo fara badan oo gubtay, kuwa damage gaaray oo dadkii laga saaray. kooxaha dowladiska waxay sheegeen 4 ilaa 6 bilood dadka guryahooda inay u garaacayeen erid isla markaana ay xaaladooda weydiinayeen. dad badan ayaa guryahoodii laga saaray maadaama dhaawac uu soo gaaray oo damage uu soo gaaray. sidaa darteed waxa ay qiimeynayaan damage-ka inta uu leeg yahay, laakiin damage weyn ayay geysatay diyaaraddaas. waxayna ku soo beegantay 2 maalmood kadib markii habeennimadii Arbacada oo Khamiista ay soo galeysay 2 diyaarad ay iskula dhaceen airportka Reagan National oo ku yaala caasimadda DC, kadibna webiga Potomac River labadooduba ay ku dhaceen. shalay ayaa ugu dambeysay 41 meed ayaa la helay, 28 waa la aqoonsaday, 18 dadkooda ayaa lagu wareejiyay. ilaa hadda 26 meyd ayaa la leeyahay maadaama 67 qof labada diyaarad ay saarnaayeen. shilkaas sababta u dhacayna ilaa hadda maadaama black boxeskii labada diyaaradba la soo helay iyo data recorderkii oo dibna ay NTSB ay sheegeen inay download gareynayaan kadibna la dhageysan doono. diyaaradda helicopterka oo military ay lahaayeen oo loo baahnaa joog 200 oo fiida inay ku duusho ayaa waxay ku duuleysay 300 ilaa 350. marka dhibaatadu waxay ka timid diyaaraddaasi oo joog aan loogu talagelin diyaaradda helicopterka ay ku duuleysay. laakiin waxaa la leeyahay xitaa ookiyaalaha la yiraahdo night fishing goggleska waa ay wateen oo habeenkii wax lagu arko. inta badanna waa training ay sameyn jireen ciidamada militariga. marka sababta ay u arki waayeen diyaaraddaasi oo lightkeedu u muuqday ilaa hadda baaritaan ayaa lagu hayaa. marka dadka kale oo la leeyahay waxaa loo malaynayaa diyaaraddu inay ku fadhiso. maanta ayaa waxa la keenaya qalab weyn oo diyaaraddaasi soo saari kara. markaas kadib meedadka qaarkood xitaa waa ay gogo'een maadaama holac uu ka dhashay diyaaraddu markii ay dhacaysay. baaritaan ayaana lagu wada. dad fara badan maalmahan waxay soo weydiinayeen sababta aan u joojiyay safaaradda Soomaaliya marka ay imaanayso gobolada Minnesota, Ohio, Seattle iyo meelo kala duwan. waan soo sheegi jiray sababta bilihii ugu dambeeyay aan u joojiyay. waan idiin sheegayaa sababta aan u joojiyay safaaradda. horta in ku dhawaad muddo 3 sano ah ayaan si mutadawacnimaha kula shaqaynayay. waa ila soo xiriireen waxayna ii sheegeen dadka u imaanaya 99.9% inay yihiin dad ka soo ogaaday safaaraddu meesha imaanayso barahayga bulshada. marka waxaan ku ballansanayn in aan wada fariisano, markaas kadibna aan wax isla meel dhigno. muddo ayaan xiriirkeena uu socday. xitaa safiirkii hore la bedelay Cali Shariif sanadkii hore ayaa xaflad Columbus oo ka dhaceysay aan ku wada kulanay. sawirkan ayaa wada galnay. sidoo kalena qunsulka Jacfar waan isbaranay, isagana waa iga mahad celiyeen hawsha aan hayay. laakiin safiirka sidoo kale hadda la soo bedelay Daahir, isagana isbuucan ayaan Ohio isku soo aragnay walow arrimahan aanan ka wada hadlin oo isku soo baranay. sawirkan ayaan wada galnay. marka waxaan safaaradda u sheegay in maadaama in muddo ah dadkii aan baray isla markaana ay iyaguna ogaadeen in dadka 99.9% u imaanaya barahayga bulshada ka soo ogaadeen maadaama ay baasaboorka ay calaaqo ay ku jaajgareeyaan $430 in hal qof lacagtiisa iska bixiyaan markasta oo aan u sheego. arrintaasi sidii aan u sheegay waa kugu soo warcelinayna ayaa la yiri, mana la igu soo warcelin. marka sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan iska hakiyo ogeysiisyadii aan u sheegi jiray marka safaaraddu ay gobolada ay imaanayso. marka dad fara badan ayaa isoo weydiinaya cilmi xagee imaanaysa. anigu waan ogahay markasta iyo meesha ay imaanayaan, laakiin ma doonayo maadaama xiriirkeennii hadda uu go'ay, ma doonayo inaan dadka aan la wadaago. maxaa yeelay waa ay diideen qaabkii aan ku wada shaqayn lahayn, waa ay ka gaabsadeen. marka anna waxaan joojiyey inaan wax wada shaqayna la sameeyo. marka sidaa darteed ayaan u joojiyey marka ay safaaraddu Minnesota, Ohio iyo meelihii kala duwan ay imaanaysa. hadda isbuucan gobol ka mid ah gobolada ay ka shaqaynayaan, laakiin ma doonayo inaan idinla wadaago maxaa yeelay hadda wada shaqayna nagama dhaxayso. marka sidaa darteed ayaan u joojiyey inay ogaadaan dadka igu xiran. ayaan rabay inaan arrintaasi la wadaago maadaama
taleefanadu ay ugu bateen green cardka ayaa maalmahan leeyahay ma lagu safri karaa ma lagu soo laaban karaa horta green cardka qofku hadduu travel document ku xareysto ama passport waa uu ku safri karaa laakiin haddii aad 6 bilood ka badan wadanka aad ka maqan tahay wadanka kuma soo laaban kartid because deganaansho rasmi ayaad wadanka ka haysataa 6 bilood ka badan dad badan oo loo diiday ayaa jiro hadda maadaama 6 bilood ka badan ay wadanka ka maqnaayeen haddii aad passport haysato intaad rabtaad maqnaan kartaa laakiin green card haddii aad haysato 6 bilood ka badan haddii aad wadanka ka maqnaato waa lagu diidi karaa inaad wadanka soo gasho arrintaasi way caddahan filaya sidoo kale dad fara badan waxaa jira ila soo xiriirayay xilligii passportka intay gaareen ayaysan xareysan xitaa green cardki 10 sano ayaa ka dhacay amaba ka dhici rabo marka waxaan la yaabanahay hadda Trump ayaa wadanka qabsaday adiga ayaaba dhahaya Trump uu tarxiil hadduu green cardki ka dhacay passportna aadan qaadan luqadiina aadan aqoonin macnaha wadankan qofku waxa uu yimid waxa ay laba arrimood inuu sharcigaasi ka helayo inuu ka shaqeysto marka haddii aad shaqadii raddi saarto oo aad sharcigeena hilmaanto macnaheedu waxay tahay waa lagu tarxiili karaa because wadanka sharci darro ayaa ku joogta adigoo sharci ku yimid ayaa haddana wadanka sharci darro ku joogta marka dad kalena waxaa jira passportka markay qaateen inay shahaadadii iska haystaan shahaadada passportka markaa qaadato shahaadada waxaa fiican inaad passportka xareysato wax kasta oo emergency ayaa iska imaan kara marka guriga inaad iska dhigato shahaadadii ma iska fiirsanaysaa miraayad ahaan marka dadka waxaan kula talin lahaa qofkii shahaadada haysta passportka ha xareysto passportkana ha haysta xaaladda wadanka hadda uu ku jiro ninkan Trump wax kasta ayuu sameyn karaa sidoo kalena qofku markuu shahaadada qaato waxaa fiican inuu social security intuu tago uu update gareeyo statuskiisa maxaa yeelay inaad passport qaadatay ayaa systemka lagu gelinaya oo citizen noqotay marka aad leesinka uu ka dhaco oo aad tagto BNF-da waxa lagu leeyahay green cardkaadi kan because wali green cardka ayaa meesha kugu jira laakiin social security haddii aad ka update gareyso inaad citizen noqotay markastaba systemka dawladda waxa kugu jira marka qof citizen inaad tahay marka adigoo passport leh wali ha iska dhigin qof qaxooti ah oo green card leh arintana dadka cusub ma qusaynaysa arinta hadda aan ka hadlayay oo dadka iyagu aan wili green card gaarin oo hadda wadanka yimid ayagu waa caadi qofku markuu wadanka yimaado oo qaxooti ahaan ku yimaado waa inuu 1 sano joogaa si uu green card u helo waa inuu 5 sano joogaa si uu citizen u noqdo marka arintan ma saameynayso arintaasina sidoo kale waa arin muhiim ah oo loo baahan yahay dadku inay ogaadaan arimahaasi talooyinkana waxaan siinaya dadka Mareykanka joogo oo muhiim tahay inay ogaadaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo